halkii niman u haystay muxuu wada ii fadhiistay waa umuurta ay ku saabsan tahay faallada warku waana qalinkii Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab cadow isa soo baahaystay ku hamiyaan soona qorsheeyaan duulaan ay ku soo qaadaan Somaliland si ay u burburiyaan jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland waxay xoog saaraan kana hawlgalaan si kasta oo ay ku kala dhantaali karaan midnimada iyo wadajirka reer Somaliland waana barta u ah bartilmaameedka ee marinka u ah si ay u dumiyaan jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland haddaba runtii waxa yaabkiisa in shacbiga Somaliland ay u goglaan xariir kuwa mar walba ku hawlan dhibaatadooda iyagoo burkaba bahalka deyn isla markaana aan hubsiimo iyo dhugmo qoto dheer ku cabirin ama halbeega saarin heerka kalgacaylkooda walaalnimo ee aan dibnaha dhaafsiisnayn taasoo ah mid ka mid ah shirqoolada lagu khiyaameeyo dadka indhow garatada ah ee aan meelaha fog wax ka eegin taasoo ah sababta ay qaar inaga madisi in dhalaana u taageeraan cadawgooda marxaladan hadda la marayo waxa Somaliland u soo xaabo urursanaya darisyadeeda ku kala xiga dhinacyada bariga iyo galbeedka oo intii hore oo dhan midkood in la waday ciyaarta goroyada balse haatan madaxdoodu ka bareereen la dagaalanka jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo bilaabay ficil cad oo ka dhanaha qadiyadda iyo jiritaanka qarannimo ee Somaliland qoladan xagga galbeed aan dariska ka nahay waxba kama oga masiibooyinka ay colaaduhu hulaaban yihiin waayo weligood may taabanin dhibaatooyinka tirada badan ee dagaaladu xambaarsan yihiin ee isugu jira burbur barakac qax macaluul dhimasho iyo dhaawac halka aanay kuwa og dhibaatooyinka colaaduhu sida Somaliland oo kale aanay ku degdegin hurin dagaal oo ay ka mid tahay maalgelin jamhado si khalkhal amni darro looga dhaxalooso xuduudaha la wadaago shacbiga Somaliland waxay ka fajiceen ficilada cadowtinimada leh ee waayahan dambe ay dhaqdhaqaajinayaan madaxda dariskeenu taasoo furka ku kicisay odayaal badan oo reer Somaliland oo dhacdooyin badan u soo joogay waxaanu oday ka mid ah waayeelka oo looga sheekeeyay arrimaha uu baryahan wada dariskeena dhinaca galbeed uu markiiba kaga jawaab celiyay beyd ka mid ah heesta uu qaadi jiray Allaha u naxariistay Maxamed Mooge oo ahayd walaalkay niman u haystay muxuu wada ii fadhiistay nin abaal badan ku lahaa saaxiibkii ayaa markuu xumaan ugu abaal guday laga hayaa niyahow sidaan kuugu lisay iigumaad hambayn iminka dariskeenu xagga galbeed ayay weedhani jawaab u tahay ficiladooda xunxun ee ay faraha kula jiraan maadaama uu iloobay halgankii dheeraa ee naf iyo maalba lahaa ee shacbiga reer Somaliland u hureen lana daba joogeen xilliyadii ay gobnadoonka ahaayeen reer Djibouti si ay madax banaanida buuxda uga helaan gumaysiga Faransiiska maanta qofka taageero u muujiya cid kasta oo dagaal kula jirta jiritaanka qarannimadeena waa qof diidan oo ka soo horjeeda waajibaadka uu dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 34 farayo muwaadiniinta reer Somaliland sidaa darteed waxaan xasuusinayaa shacbiga in maanta la joogo waqtigii aan numadeyn lahayn af iyo adinba si aan u difaacno jiritaankeena dalnimo